waxaan ku wax kasta dhacay war heedhe iyo warramade maxaa haysa muxuu yiri waa nabad war waa tan la baaye maxaa tiri bal ku celi war yaa waxa ka sii dumarka barooranaya war heedhe ha sheekaanadii haya war ma haysan waxa dhacay idhageysadii sheekaanadii haya ha dhacay ilaa ninkayga nin waxaad ku barateen marka halka isugu nimaadna nin sheeko badanay habeen yaa haye dhageyso maaldhood baa waxa dhacday horta ninkayga aad arkaysaa nin shiishiyahana baana waxbaa dhacay dhulka ku dhacay dhulka kumay dhicin aday kugu dhaceen waa dhageyso waa waxa kaga dhaceen waryaha ma la socotaa wax ma lagu yaqaanaa maalin dhawey tolo wad shiishiyahana ahay meesha aan wax ku fiiqo ama aan ku tuuro lama waayo oo shiishka ciidan baa la tababaray shiishka naqaana ciidan baa la tababaray war meesha dagaal baa ka jira shiishka waxa kamid aan hadeen baldan ka hadliyo yadiisa macnii eeg fahan waa qumbiladaha hawlaha ka dhageysoodii allah adigu waxaad ku wanaagsanad in aniga ay jiibiso halka iga daba qososho war idhageyso waxa baa sheekadu way dhantaay maalin tolo waxaan goori anigoo shiishiyahanka khatarteen ku sheegaya ayaa meel baa geed baa ku yaalay waaba kanba geed asha jirto hayi halkaasaa dabada geedka dabadiisa waxa ku gabanaysay sakaaro inaan ugaadhsanaabaan doonay aniga ninkan ma baanu ahayn waa gart dabadeetana sakaaradii baa geed ku dhufo isiliyo kaga gabato geedkii isku qarso arkeen baan ku dhoon kala booday waa gart sakaaradii oo geedkii ku daba jirtaan halka kaga soo wada qaaday dhigtaasaan xabad ka geliyo raafka dambaan ka saaray yaa dhigtaasaan ka geliyay baan ku xabad iyo raafka dambaan kaga saaray oo adeer runtii waa runtii oo adigu maad ka soo qarqaraysaa been baad waxaan ku baashay ila waa la bandheeyaa farsamo kala loo qor waxaan ku waa la riba geeska kiri macajuusad badna noolaan jirtay cajilaad xumida ma adiga weeg mayna dhageyso ninkan runba ku sheegay suu ku sheegan ku sheegnaa haye eeg sakaaradu ma taagnay qaabka sakaaradu taagnayd baan ku sheegay hadii bilmatalan qaabkaagan oo kale ma u taagnayd indhihi muraadka soo qaad walaal muraad yey ka qaadan balkala ayuu la shiishay ninkani ma la shiishay sakaarad markaa way xoqanaysay dhigtan way aqligaagu mar shaqaynay waa u dhiibi halkaas ka baxda walaal daskale mariya ana yaabay wani kuma miibi kaymi sakaarada ilin magaalada joognaa haatan mi yiraahdo gaariga waxbaan daaqadii wax kala baxayo waxyaabo kala min yiraahdo da sheekadu way socotaayo leebo maalin farxadeed ee tukalaan ku dhufan waxa dhacday ma ogtay habeen dhaweedoon saa u si fogeen anagoo iska marqaamayno dil rabay in ciid la soo dhaweeyo kale arag waxa ku aanu aniga ninkan nahay haye cirkaas u markaysaan oo aan midcaada lahayn oo aan daruur lahayn oo xidigu sida wacwacda u hayaan haye ayuu baa anagoo iska fadhna sidan barta u eeginin warkiinba bahal nayl ka soo taqaanid nayl yaro ciriyo dhul meel u kaymo ba aan la garanaynin ba horteeda ku soo yiri dhalwac deebarkii markuu ka soo socday dhalwac dhulkun baa yar ka soo kaxay dabadeetana intuu iska kacay inbuu hooyadii halka taagan iska jaqa abal been waa runtii oo adeer waxaan ku yiri ma cirka dhalayaan cirku ma nayl u dhalayo daruuraha waxbay dhalaaneen waxaro iyo bisaday may dhalin abdi ismaaciil ma dhalin walaal alla jibiyaha wanaagsan eegku soo dhac geel waxba iska dhageystaan adeer muran ma baahnade maxaanu ka dhageysanaa adigu jibinu baa sheekoonaya hawla ku jira naylku ma soo dhac naylku marka casarkii ahayd baa adigu dafa qaadato hawada la aaday dabaysha baashan habeenkii habeenay leed markuu barkad ka soo dhac adiga sitay malaha waad u egtahay dafada sheegaysay dabadeetana hooyadiina ciiday maqashay waa ku soo orday halkii tuu qorteeda ahayd a'uudu bi alla been badanida adigu a'uudu billahi min waxaan ku sheekaysanaa waalan war wuxuu weegyahay sheekooyinkoodii bay waxa la yiri shimbir waliba shimbirkiisu la duwaa kooni garan maayo waxaan waxaan ku rideen adeerto xilqadii bay gaadhay waxaan ka nala hadlayaa ama bakooradii war aamus neef iyo waan ku yiri waxaan ku yiri iscayn wallahi aniga dulqaad badan oo ilkaasan ka daadinay waxaan ku yiri orod beenaalayo war saxo hariya waxaan adaan barayde war nimanka waxa akhriyo waxa soo aduguna ma barin beenka ka keenay war mid ba ambay baraygo maalin la socdo ay meel xakaas noogu yimaadeen waxaan garan maayo adigu ma maalin walba waxa soo kaxaysanaysa qaar si ma nimanka ku leeyihiin ayayada war naga tago wala maxaan oo keenay war mash naga xay waryahay wallahi baan maanta dhaaf subax wanaagsan hadii quraanka la bal waa taas anaga hana dhaafto halkaas soo martaa intii ma tihi waxaad madogti abli baan sitaa toori waay waan suu ka wareejin haddaad mayay iba dhaadoo lambarkeeda gacanta saa u laalaadinay tuswi lambarka sheegaysayadan u laalaadinayna inta soo horta halkaas soo martaa adu waa soo marto anaga inac nala soo doonayaan dumarku gibgeedu wallahi soo doonanin adiga ayaa aawo gibhu tubad ma hayaabtay ma leeyahay shanta meerin fariid mar bay dhaafisay laakiin warya inaad inta hore aad yaqaan inta hore inaabti kaalay
hallo hallo Hi. ha hay intii uu yada ugu daray sama fiicnid walaal walaal waa nabad soo walaal ma wanaagsanid haa I wanted to halkan anagu aan marinay marka I am living lamination how I love you wanted to you soma walaal haa anigu waxaan ahay nin halisa hawlahaygu waa cirkaa arrimaha jacaylada gebigiisuba intaan saa u laalaabay baan qolka soo xidhay maahe haa waa miyaan lagu sheegin laakiin dacdad kabacdi ummadda ilaahayba way yaabtay haye hadda ma garata haye adiga iminka intaa saa ku eegama gebiga ku ammaanaya hees kugu ammaanaya dee amaan halo halkaa taagan dee amaaniyo baryaha waa raadin Miyaa ku amaanaa? haa iskiriin waxaa tahay iskiriin waxaa tahay jugulaata malab iyo iskiriin waxaa tahay maangiya tufaaxiyo iskiriin waxaa tahay qaji iyo basbaasiyo iskiriin waxaa tahay iskiriin macaaney waxaa tahay maanta warde amaantii ugu dambeysay waa dhanta maba iska dhumaynaaba wax la sii raajiyay rag kuma sinne wallahi waa iga dhab wallahi waa iga diyaarba dee maya waxbaba raajin mayne saasay noogu dhantay waa yahay nasi lambarka waa iga dhabdee miyaan anigu warwareegaaba qor adigu maya layskuma yeedhin mika waa laysku qoraaye maalin dhaweed baa xitaa laba hablood isku kay qabsadeen maahe markaasaan labadiiba dira adaa ilaahay ku keena wan wadwad shan horena waanu erinay walaal walaale waan kuu qoray caafadiina imise surin bay naga xigtaa hadda waan garanaya ilaa meelaha saddex soo maaha teere halka marka laga laabto soo jeedka kasii jeedaa aniyo fariid wallaahi waa runteedi gacanta istiisba waa istiyatiye waa ka hadalku waa dhan tahay saasay imaanaysa walaal saasay noo haanaysa hay oo ku salaamaya waan kaa qaada magay noola imanayaan moodaya inaan hawlaha ka wadi karo frid dee waa kaa inaadeer nacal laba kuma yaallo noodhis Waa nin raga gabadha baa. noodhis gabadha dabaniyo anaa kuu dhisaye Mm, heedhe mm. bartaad ku taagantay maar haa inaad wax kaga sii dirto meerkiisa waa hawlaha waa waday good war wayna marinayo waa tahay intaasi aynu kaga nimaadno majaajiladaasi ay noo soo diyaariyeen xuduudda fanka oo habeenkan caawa barnaamijkayna la qayb qaadanaysay aad iyo aad baad u mahadsantihidiin dhankii heesaha ayaynu jaleeci doonaa waxaan u yeedhi doonaa aan idhaahdo axmed xasan aw cali master kiiro sacabka haloo tumaha soo dhowaado axmed soo dhowow waan dhawahay walaal mustafa mahadsanid waa markii imisaad horta ciid mubaarak ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr waa markii imisaad aynu halkan iskaga hor nimaadno waa waqti hore weekend dambeysay horta tirin kara maayo maxay laakiin way badnaayeen wareegyo badan ayaynu iskaga hor nimi somaliland got talentigii si fiican eesh cala fanaan waagaa waxaan garanayaa horta inay dad badan aad ruxi jirtay caawase maxaad inoo haysaa caawa waxaan inoo hayaa hees la yidhaahdo naruuro Mhm. naruuro ereyada yaalla erayada waxaa iskale abwaan cali haybe ahna gudoomiyaha afhayeenka kooxda xudunta fanka muusiga soo kale waxaa le erayadii lixankaba isagaa leh abwaanku aha muusigana waa maxamed xasan xuseen digaalayare gudoomiyaha kooxda xudunta fanka codkuna waa adiga codkuna waa aniga soo dhowow qiiro thanks Saporo
لا إله ruuxda ku nugul nagaasho u dar waaw aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidaad heesta wanaagsan noogu qaaday eed barnaamijka nagala soo qayb gashay waanu ku faraxsannahay mar labaad inaanu ku aragno adiga iyo gruubkaaga xudunta fankaba waad mahadsantahay mustaaq welcome soo dhawow waxaan halka ka salaamayaa horta ummadda islaamka aan leeyahay ciid mubaarak dhammaan meel kasta ay joogaan iyo kooxdeeda xudunta fanka oo u horeeyo gudoomiyaha kooxda xudunta fanka ahna musicianka maxamed xasan xuseen dagaalayare صح iyo waliba abwaanada kooxda iyo kooxda inta fanaaniin majaajilaystayaal kooxda inta ka kooban tahayba sidoo kale waxaan halkan aad uga salaamayaa macallimiinteeda macallinkaygiiyo soo ahaa marka horena maxamed xamed ciga busi aad baa isna halkan uga salaamaya iyo cabdiyare waad mahadsan tahay waad mahadsan adiga ku salaamaysa waa tahay dhanka fanka iyo heesaha habeenkan caawa ka bixi mayno waxaan u yeedhi doonaa heesaaga ku xiga guuleed bade xasan guuleed gabiiley hala soo dhaweeyo
soo dhawow وندوي مشتاق والسلام ciid mubaarak عيد العافية heestaad qaadayso waxaa la jacayl xabaal galay xabaal galay oo yaa aasay dee jacaylku maruu dhintaa jirta ile mar kastaba noolaanaya iyo markaa aasaya dee kolley ciddii aastoo iska soo bixi doontaaye ereyda wax iskale awaan iid garyaqaan laxankii muusigana ana iskale waxaa laxan kasta loo sameeyey bare macallimiintayda cabdi maxamed jaamac iyo maxamed maxamed ciga busi aad baan u salaamaya labadoodaba miisigaada gacantaada ku tumanaya laxankana adaa saaray ereyadana yaalabaa tidhi garyaqaan iid ayaa iskale haddaan ku yar maqashiyo waxaa odhanaysaa xilliyadii wacnaayo maad xasuusan sagaley mise waa xidhiidh go'ay waa jacayl xabaal galay mise waa xidhiidh go'ay waa jacayl xabaal galay yaa salaam heesta markaad qaadaysa waxaad moodaysaa imika intaad yarad igu luqaysaan arkaya inta kalena weynu ka wada hadli doona inaad adiga uun ay aniga ma ahaada iga daaha igu sirin waxaan leeyahay ciid maarig ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan ummadda reer somaliland hooyadii cashe maxamuud dhidar oo joogtay magaalada gabiley aad baa u salaamayaa labadayda walaalood iyo carruurtooda iyo dhammaan faamligayga o dhanna waxaan leeyahay ciid maarig waxaan aad u salaamayaa labadayda macallin oo in badan igu soo tabcay kolley waa laxankii ugu horreeyan sameeyey macallinkaygii busi iyo cabdiyaarana way fadhiyaan insha allah iyagana waan eegaya fantastiga وكتب حناني قلبيك كوكو حيران يركي السماد مرين ربما عاشقوا وكتب حناني قلبيك كوكو حيران يركي السماد مرين عرف وحرة الكيغو نفتحي سقاريو حن تضاكو لفتا نفتحي سقاريو حن تضاكو لفتا ماذا عاد حرف وحرة الكيغو نفتحي سقاريو حن تضاكو لفتا نفتحي سقاريو حن تضاكو لفتا اللي يدي سما بري ما بحسوس سقاري السواحل يقوي وانت حيد حبال قري بالسواحل يقوي وتحيد حبال قري اللي يدي سما بري ما بحسوس سقري بالسواحل يقوي وتحيد حبال قري بالسواحل يقوي وتحيد حبال قري markuu gabaxilkiise laftayda ku xaran heerkeedii madgaran halba maashabo markuu gabaxilkiise laftayda ku xaran heerkeedii madgaran jacaylkaagu xubin xubin ugu fida xiskaygo hadba xulashadaadiyo
ku xawilan dhankaaga hadba xulashadaadiyo ku xawilan dhankaaga jacaylkaagu xubin xubin ugu fida xiskaygo hadba xulashadaadiyo ku xawilan dhankaaga hadba xulashadaadiyo ku xawilan dhankaaga xilliyadii samaabari madax xasuusa sagareey mise waa xilli go'ay waa jacayl xabaalgalay mise waa xilli go'ay waa jacayl xabaalgalay xilliyadii samaabari madax xasuusa sagareey mise waa xilli go'ay waa jacayl xabaalgalay mise waa xilli go'ay waa jacayl xabaalgalay xilliyadii samaabari madax xasuusa sagareey mise waa xilli go'ay waa jacayl xabaalgalay mise waa xilli go'ay waa jacayl xabaalgalay sagalay mad xasuusan xaafadii calashaan maad soo salaami weyn soma xilliyadii samaa iyo maad xasuusan sagalay mise waa xidhiidh gooy waa jacayl xabaalgalay waad iskaga tagtay weeyaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay muusig macaan iyo cod macaan iyo laxan iyo erayo wanaagsan baa isku dhacay waa muusigii ugu horreeya tuntayba haa waa muusigo badan waan tumay laakiin waa muusiga ugu horreeyaan tumay cawa macallimiintaydii maxamed ciige busi iyo cabdi maxamed jaamac way fadhiyaan maxamed xasan xuseen gudoomiyaha kooxda xudunta fanka wuxuu ka mid yahay macallimiinteeda anigu wax badan ka faa'iidaystay marka waa muusigii ugu horreeyaad soo bandhigto eed tuntay haa stagean la soo koro weyn anigoo qaadaya tumay weliba aad baad u mahadsan tahay ciid mubaarak baan ku leeyahay mar labaad waa kaa aad baa mahadsantahay mushtaaqe guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenna aynugu talagalnay ciidal adxaha oo ka mida barnaamijyada telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan ka baxaya ciidda qofka ugu dambeeya ee barnaamijkeen nagala qayb qaadan doona haddii allah awoodala ka dhigo ayaan u yeedhi doonaa waxaan u yeedhayaa yuusuf cabdilaahi muuse mastar ceegaag ha la soo dhoweeyo sacabkana ha loo tumo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaanteenba iminkana waad heesaysaa yahaada waxaan sidii dadkaa heese dabada kaga darso markii hore haa inankii horta la riixriixaya maduha kii la riixriixayay haha ee marba meel loo jahaynayay wallahi waa darkiis cidna ha u sheegin laakiin waxaasay daruur u qaadanayaanoo dadku iska bilaayaya baas ma sheekadii daraaddeed baad dhexda iskaga xidhay mise mar sidaada hore may wallaahi iyadoo dhaba baa iska ishcalaa fariid heesta diroo qaadayso heesta aha waxay ahayd qotonka iyo jooga qotonkii jooga already waa saa u taagan tahay un baa laga mitin midhaha waxaa le inaanu saaxiibanahay oo abwaan ahoo jiraado hoo la yidhaahdo abwaan heelo laxanka iyo muusiguna waa ninkan iga dambeeya dee aad caawaba dhegaysanayseen maxamed digaalayare haa hadda haba iga horreeyey gudoomiyaha kooxda aha waa nooca adigu fanka horta hore maynu isku aragnay allah hayaay ma inagu inagu iidkaas inu istafiri doonaa sonagii halkan wada taagay hawla allahay ee aynu masraxanin badan wada taagnay goormaa dee berigii waqtiga tartankii helmad waqtiga helmad wallaahi waqtigii laaweyba waqtigii xilmuhaa ma xasuusta horta adiguyna barnaamijka noogu daadihin jirtay aad wada qosolka ahayd wada farxadda ahayd waa tahay heestaasi aynu kugu soo dhaweynaya 2015 bay ahayd barnaamijkii somaliland ku talentiga adigiyo kooxdaadii reer togdheer daawadayla runtii waayahay daawasho wanaagsan daawadayaal ciid mubaarak baan idin leenahay meel kastood joogtaan aad naga daawanaysaan waa ku kaa heeste
qumatiga dhaqaaqa xisho jiraada iyo qaayabanaanta hadasiga qaabka qumatiga dhaqaaqa xisho jiraada iyo qaayabanaanta sheegay waxaa isku qaatay intaan qodob sheegay waxaa isku qaatay hablaha qaaligii qaybaha soomaaliyeed hablaha qaaligii qaybaha soomaaliyeed qaadirkeen ku uumay sheegay waxaa isku qaatay intaan qodob sheegay waxaa isku qaatay hablaha qaaligii qaybaha soomaaliyeed hablaha qaaligii qaybaha soomaaliyeed qaadirkeen ku uumay sheegay waxaa isku qaatay intaan qodob sheegay waxaa isku qaatay hablaha qaaligii qaybaha soomaaliyeed hablaha qaaligii qaybaha soomaaliyeed qaadirkeen ku uumay qodob sheegay waxaa isku qaatay intaan qodob sheegay waxaa isku qaatay hablaha qaaligii qaybaha soomaaliyeed hablaha qaaligii qaybaha soomaaliyeed qaadirkeen ku uumay maxaad hablihii u heystay markiis wanigu kusii sheegaan kuwaasaad ugu horreysay ka hor majaajilooyinka ragga sameeya iyo ragga hawsha gala ninkeed ugu jeceshood mar walba ku qosashaa markaad daawatid
waxaan ugu jecelahay Aha. dhowr miyaan kala doordoortaa mise waa kala horraysiya xabadda aad qosasho Hayaa. qosasho ee ilaa halkan lagaa maqlo de waa haya horta qaar waaba dhinteene kuwa dhintay maynu ku darnaa maya maya inta nool allaha u naxariisto intaad dhimatay inta dhimatay laha u naxariisto kuwan xirsiyo kulli intaan sii garanayo aha cabdi haybalambadna ku dar bursooraan ku dar daweynta iyo qaar kaloo aan ningu ilaawayay markaad soo eegto waan sii jeedsanayaay qolyaha iminka tog dheer jooga ha ee majaajilooyinka sameeya hmm. haddee hadaa ha aadna iga sii jeesan run amoodina wad ها ودي maxaan ka garanaya Wad weeye. xagga wadiga Wad weeye. anigi barweyd batay Hayo, hayo, hayo. keebaad ugu qosol badan tahay tog dheer inta joogtaa ha allah ayay de sooraan sooraan ha wii qoslay madan jawaana dees kaga darsagana waa ku jiraa waa bariiska bas aniga qof sheeg baad ugu tiri ha dee qofkiina waan sheega laakiin ma jali jileys dahay soo bilay keligii maaha Ha. ee waxay dhibaatadu ka dhacday Ha. imanka ninkan la yidhaahdo ma guri barwaaqa la yidhaahdo ha aan idhaahda guri barwaaqe inta badan isagu waxaa jira majaaligii sameeyo oo ha ya ha kaasoo kale ha keligii weeyaan haddaad keligii sheegto waa caadi laakiin sooraan iyo jawaan ha kale reyn bad leedahay haddaad kala reebto ha waxbaad dhacay wayna la soo weeraraya waa saxay waa jawaan iyo sooraan may aan horreysiiyo waa jawaan iyo sooraan weliba sidaasay de noqonaysaa markaas markii hore weli majaajilo adigu aad samaysay Hmm. ma ku qosashay may weligay iskuma qoslo weligaas kuma ha qosan soo inta halkan taaganahay lama samaynayo ma qoslo goormaa kuugu horreysay inaan sameeyo aha aan galo aha waktigii hore wakti hore oo ahayd 2013 waxaasoo kale gacalo u samaynaya haa walaal caawo dhowaad naga qoslinaysaa ha daawadayaashaad ka qoslinaysaa Ha. su-aalaha waxaan kuugu badinayay Ha. gabagabadii barnaamijkeenu joognaa Ha. yaad salaamaysaa anna aan dhammeeyo oon saa kusoo gabagabeeyey ugu horreyn adiga allah waa yسلمك kow aha guddoomiyahayga iga dambeeyey muusishakayga iyo macallinkayga macallinkiisii oo taagan cabdiyare kooxda xudunta fanka oo dhan waalidkiiba oo ka tegay waalidkeena ku dar hooyada iyo aabaha iyo walaalahayna ku dar dee salaanta laga bixi maayo wixii muslimiina waa salaamaya soomaalida dhan waa salaamaya heer somaliland waa salaamaya de waa haadu salaam waan Wallahi isdeh tawfiiq. ha weli waa isugu dartare ha qaybsadeen iyagu marka ha marka dee midmid mi haddaan usoo qaadno mid baa kaa soo horbaxaya dhoonay maxaad maalintii salaami weeyey adiga hebel bay salaamay haddaan midmid u qaadno aha marka ha qaybsadeen iyagu meelaha ha ku qaybsadeen oo salaam ciid mubaaragna waynu leeyahay ciid mubaarak baan ciid leeyahay. mubaarak Waa dhammaantiin kuu kaa. ha daawadayaal yuusuf waxa uu ahaa qofkii ugu dambeeyey ee barnaamijka habeenkan caawa kooxda xudunta fanka ayna la qaadanaysay ciidda dabaaldega ciidda habeenkan caawa ayuu nagala joogay qofkii ugu dambeeyey ee ka hadla shaashada telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan isla barnaamijkan kooxdeena soo booqatay waxaan idin leeyahay dhammaantiin waad ku mahadsantihiin sida aad noo daawanayseen waad ku mahadsantihiin sida telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan aad ula socoteen ciid mubaarak baan idin leenahay meel kastoo aad adduunka ka joogtaan